hawl markii hore socotay haddii ay hakad ay gasho kolley wax unbaa soo kordhay kolley xaaladda markaasi soo kordhayna sidii wax looga bedeli lahaa ama horey loogu socon lahaa hawsha horey raggii waday aan ognahay loo igmaday oo xukuumadda hadde uu ka yahay ra-iisul wasaaraha garwadeen injineer maxamed xuseen rooble iyo haddee guddiyadii iyagana loo igmaday arrimaha doorashooyinka iyo hawsha si guud ahaan iyagana dadkii hagayay ee ah madaxda maamul goboleedyada intaasi ayaa kolleyba waxa iyaga wixii hakadka keenay iyo sidii loo socon lahaa looga gudbi lahaa hadday jiraan caqabad soo kordhay ayagaa inta looga fadhiyaa aad baad umahadsan tahay sidan haddii xalka uu kusii socdo oo markaasi doorasho kasta xilligeeda markii la gaaro hagad uu yimaado ilaa haddana dadka musharaxiinta xildoonka ahna aysan si rasmi u aqoonin waqtiga kama dambaysta ee doorashada soo gabagaboomeyso taasoo lama micnaan karo in wax kasta ay sii jiitamayaan waa mahadsan tahay horta xikmad carbeed baa waxay leedahay kulla aatin qariib wax kastoo la sugaba way imaanayaan wax kastoo markaa haddaay aan lahaa hadday dib u dhacaan ama hakad uu ku yimaado sabab unbaa meesha waxaan ognahay is-afgarasho waa jiray maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe wax badan inay qaadatay qaarkood weliba oo maamul goboleedyada dib u dhac xaggooda ka yimid in asbaabihii dib u dhac keenay inay iyagu hawshaa iyo mas-uuliyaddaasi iyaga xaggoodii ay ka ahaatay laakiin markii haddana laysla wada dhigay meel heshiis la gaaray la wada saxiixay fulinteedii haddana waxay ahayd wax qaadatay wakti oo loogaga baahnaa wixii markaas iyaga ka hor yimid sidii loogu gudbi lahaa xalkeeda raadintiisa isku soo duub wax weliba iyo marxaladeedaba waxay maanta soo gaartay in aqalkii sare isaga lagu bilaabay hanaankii doorashooyinka habraacii guddiyadii wixii iyadoo hadda aan dood ka taagnayn in la soo afjaray oo hadda waxa lagu jiro ay tahay doorashadii golaha shacabka oo tii kama dambaysta ahayd kadibna looga gudbi lahaa doorashadii guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha marka maadaama haddana hakadkan yar ee dadka yara xoogaa gelinaya confusion waxaan arkayaa kolleyba in ayadana laga gudbi doono wax weyn aanan ahayn maadaama uu ku adkeysanayo ra-iisul wasaarihii oo isaga mas-uuliyadda inta fara badan hawsha isaga loo xilsaaray inaanan doorashadii la joojinayna ay sii soconayso guddigii doorashooyinka ee heer federaal oo ayagana ay hadlayay iyo kuwii maamul goboleedba ay leeyihiin way soconaysaa hawshii marka waxaan leenahay yaan maaragtay iyadana maaragtay wax weyn laga dhigin aan siino waktiga yar ee ayaga wixii hadda u baahan in la xaliyo ama caqabada jiro sida looga gudbi lahaa falkeeda waan gartay arrimaha doorashooyinka ayaan weli ku guda jirnaa ka hadalkoodii haddii aan markan si toos ah u tagno koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose oo iyana deegaan doorashadaada dabcan ka mid ah xildhibaanaad tahay sidoo kale mar kale ayaa hadda danaynaysaa in sidoo kale aad musharax xildhibaan noqoto oo aad jagadaasi aad qabato gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanada ku teedsan magaalada muqdisho ama diriska la ahba waxaa laga soo sheegayay maalmaha xiisado iyo dhibaatooyin markaasi kala duwan waa sidee maxaa xog ah oo nala wadaagi kartaa iyo xaalka sida hadda uu yahay waa maasantihiin yariisow adiga iyo Somali Cable waa run shabeellaha hoose in muddo ah waxaa ka jiray ismaan dhaaf oo xagga amniga xaggiisa saameyn xataa ku yeelatay oo wanla weyn waxaa ka jiray isku dhacyo oo beeleed sidaa iyo meelo kale isla gobolka ka tirsan ayaa iyagana waxaa ka jiray murano councilkii baraawe laga dhisay ayaa mar waxaa yacni ay ku dhowaatay inay meesha wax qalalaasa la yidhaahdo maaragtay ay ka abuurmaan oo awood qeybsigii dood ay ka abuurantay degmada afgooye oo iyadana runtii halbowlaha gobolka shabeellaha hoose ee Suez Canal oo ah marka loo fiiriyana dalka isku xirkiisa intiisa kale iyo gobolada ayaa iyadana ilaa heer canshuur in
ma dhiibayna la yidhaahdo ayagana ay ka yacni abuurmeen qalalaaso dhinaca maamulka xaggiisa ayaa jirtay xaqiiqatan intaba dadaal loo galay oo aada maaragtay runtii ay isku howleen oo aan ku ammaanayo maamulka cusub ee hadda ee maaragtay gobolka asaga loo magacaabay ee uu guddoomiye uu u yahay governorka maxamed cabdiraxmaan nuur ku-xigeenna uu yahay amniga iyo maaragtay maamulka isagana axmed cumar maxamed mudane loo yaqaano oo ay aada runtii dadaal iyo weliba kormeero iyo booqashooyin ay ku gaalaa bixiyeen degmooyin fara badan ee gobolka oo baraawe ay ka mid tahay ee arrintii ka jirtay problemkeeda ay soo xaliyeen sidaas oo kale haddana degmada afgooye oo hal bil canshuur xataa in la dhiibo oo lasaga hor yimid oo meel adag arrinta inay gaarto ay ku dhowaatay oo iyagana ay xaliyeen walnaweynna hadda maarta ee uu governorka uu ku sugan yahay intoodaba runtii dadaalkoodii mid aada loogu bogay gobolka waxyaabihii uu wajahayay ee qalalaasaha iyo is-afgarashawaagii waxay ahayd arrin runtii aada loogu diirsaday sidoo kale booqashadii madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta gareen wafdi aniga qudhayda aan ka mid ahaa guddoomiyaha baarlamanka ee mudane cali faqi ee koonfur galbeed iyo wufuud kale oo xataa ra-iisul wasaaraha isagana maalintaasi booqashada baraawe oo ayada loo diyaarinayo in ay ka dhacdo doorasho oo kuraasta maaragtay xildhibaanada gobolka shabeellaha hoose oo meesha taalo oo ra-iisul wasaaruhu iyo madaxweynaha maaragtay koonfur galbeed ay isbitaallo soo fureen oo dhagax dhig garoon weyn oo sporti alla soo sameeyey sidoo kale maaragtay daahfur madaxweynaha koonfur galbeed uu sameeyey oo councilka hadda uu kasoo maaragtay onkamay degmada baraawe arrimahaas oo dhan oo wasiiradii ay la socdeen arrimaha gudaha iyo maaragtay hay-adihii kale ee ayagana amniga waxay ahayd runtii arrin aada iyo aad ay gobolka waxweyn ay ka bedeshay iyo booqashadii haddana isla madaxweynaha koonfur galbeed laftirkii uu ku tagay belidogle oo ciidankii daraawiishta ee amniga loogu talagalay ee gobolka maaragtay isagana inuu usoo xiray tababar halkaasi runtii waxyaabo fara badan iyo bulshadii oo uu la soo hadlay wax badan bay gobolka dejisay gobolkan hadda waxa waaye rajada ee laga qabo waxa waaye in council loo wada dhiso degmooyinka oo ay afgooye ay qayb ay ka tahay ay ku jirto qoryooley waad ogtahay gobolka 8 degmo ayuu ka kooban yahay dhibaatooyin fara badan oo la soo kulmay maadaama uu yahay gobolka Soomaaliya ugu kheyraad badan gobolka ugu weyn ugu population badan ee caqabadaha ee maanta ee asaga uu wajahayo mid hadda bilow aanan ahayn tan iyo isticmaalkii qoriisu dhiib soo ahayd haddana dadaalka la wado iyo sida hadda xaaladda aan ku maqlayno afgooye kaliya hadda waxa waaye awal waxaa ka jirtay canshuuraha iyo dhaqaalaha iyo lacagaha meel ay kala aadayeen lama garanayn laakiin hadda inay habeeyeen guddoomiyaha gobolka maartay iyo ku-xigeenkiisaba maartay mudan iyo maartay mudane maxamed cabdiraxmaan intaba maartay waxa ayaga ay amaanta ay siinayaan dadka deegaanka in dhaqaalaha hadda loogu talagalay afgooye in dib loogu celiyo wax loogu qabto wax loogu dhiso khasnada maartay ee hadda lacagtaasi hadda ay ku xarootay halkii markii hore qaran baynu nahay qorax waxay helaan kala qaybsadaan ee aan jirtay galabtii lagu kala bixi jiray marka runtii taasi waa ku bogaadinayna waana ku amaanaynaa